tani waa sheekada xanuunka badan ee qurba joogta Soomaalidu ay 10 badan ka baran karaan ee Hana Bixi. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada. Hana Bixi waxa iyadoo ay 7 jir soo gashay dalka Mareykanka iyadoo la socoto hooyadeed iyo aabaheed. 15 sano intaysan gaarin waxa gurigooda la soo dejiyay wiil walaasheed qabay oo ay tiri dubaashigaygu ahaa. sida ay iyadu sheegtay wiilkaas ayaa farxumeeyay hooyadeed iyo aabaheed bay u sheegtay dhagna jalaqa uma isiina waxa la yiraahdaa aamus alla ku ceebay hana ceebayne hana 15 markay gaartay xanuunka u adkaysan weyday waxay ka carartay gurigeeda tani waa sheekadeeda marka hore hana waxaan leeyahay waxa tahay geesiyad hayeelin dad baa ku oran doona na aamus dadka ceebaynaysa hadlin hadalkaagu waa healing waxaad tufaysaa oo sayraysaa xaqiiqdii waxaad sii daynaysaa xanuun insidekaaga ku jira waxay guursatay nin ka weyn 20 sano oo waxay isticmaashay daraag waxay martay xanuun now hadda waxay u taagan tahay inay badbaadiso dhalinyarada Soomaaliyeed tani waa sheekadeeda Hareeri Media ayaan u mahadcelinayaa oo barnaamijkan ka soo qaatay ee balnala laakiin 15 jir hana daadaadu aad ba u yaray sidaad ku heli jirtay maandooriyaasha la isticmaasho dadkan socon jiray wiigu waaweynayeen Soomaali baa habnaysa Mareykanka kale Soomaali waa Soomaaliya oo naga waaweyn oo tuugnimo aan baranay saasan bilowdeena u soo gadan jirnay marka waxa soo xadaan ba ku iibsan jirteen ha waatay wax dhibaato taas kalama idin kalumin maxaa kolba xabsi baan ku soo koray kolba waa la xidhiyay kolba waa la soo deynay therapy man haysan qof gacan qabtana man haysan walaalana man haysan todoba walaalana ii jooga aniga kalinimadiisa adduunka markay cidhiidh ku noqoto muxuu sameynayaa balwadii baa haddana maxaa la dhahaa aan noloshayda aan mana ka dooran mana garanayso la iskaga joojiyo dhowr treatmentna waan aaday laakiin dhowr bilood marka anoo nadiifa baan haddana iskaga laabanayaa long term treatment man hayston inta igu badneed waxay ahayd 4 sanadood marka asxaabtaadii kale waad ka hadhaysay inta aad caawimada raadinayso ama aad doonayso inaad maandooriyaasha ama drugskii joojiso marka dambana iyagii baad ku noqonaysay miya iyagan ku laabanayay kolba dad kale baranayay maxaa la dhahaa xataa caruurtooda aabahood 20 sanadood iga weyn yahay jecel ma iga hayn يعني قبل يرو ظروف صنبناها وعاوتان قفي فهمي لا therapy ما هي سوى حنا يستمي جرتون إمس عرورات لش أفر بنا يهين أفر عرورات أجانبي ولا ها واي نكاغو مريكان بوها مركا ها وأفريكان أمريكان نكا تعرفون ولا أفريكان أمريكان أما مدوغ مريكان كوها ها لبعتن سنود وكاوينا ها لبعتن اسم حاكن يعني شعل يمجي نكا balwad wax qof walba way barteen wax walba way ii geysay waqtiyada qaar kood cid lama ku soo dhici jirtay oo tusaale ahaan homeless oo kale guri laan ma ku dhacday waan ahaaba caruurtayda xataa markaan maxaa la aan dhalay xaafad man haysan shaqo man haysan wallahi silac bay ahayd noloshayda haddana balwadana waxba ma ii fududayn marka xageed ku noolay kolba shelter kolba roommate kolba maxaa la dhahaa apartment haddana waqti dheer maan haysan xaafado because balwada maxaa la dhahaa marmar ila tegi jirtay noocyada aad isticmaali jirtay drugska ama maandooriyaashu nooceebay ahaayeen ani waxaan cabbi jiray khamrada xashiishada methka intaas saddexdaas iyo sigaar waatay ogaanta dhalinyarada Soomaalida ee Mareykanka dhibaato intee lag bay ku haysaa drugsku wallahi dhibaato weyn maalin walba qof baa dhibanaya wallahi is really sad maalin dhexdaas qof aan isnaqaan ay ku dhahay maxaa la afar wiilo Soomaali baa maxaa la overdose last year December warna man hayn halkan baan joogay laakiin shalay ma daraad baan maqlay saas ma anina ku wala dhimano
waanan ogaa maxaa lahaa balwada inayna maxaa dhahaa nafteeda u xuntahayn kolba aan raadsinay anoo xanuunsanaya waan ka xumahay dhibaatada dareemayso hana bixiyey adeer allah ku barakeeyo aad iyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad wax ka bedeli doontaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo aan anagu reach karin oo fahmi kara khataraha hortooda yaala iyo khatarta ay isleedahay isticmaalka balwaduhu allah ku barakeeyo change maker baa tahay waxaad maqli doontaa dad ku dhaha naga aawns reerka caabina marada naga ridi doontaa dhageysan adeer it's your right to tell your story waa powerful waa awood adigana healing bay ku tahay keep talking keep telling your story أحد أركي دون تعطيك كريتساس قريب كلها نين مدوي جورستي واحد أو بحين هذير we all make mistakes كوا سيداس كلها يجلس تود نفتود دي بهو إيجا أنت قلت كل عادي إلهي وغفور الرحيم دم بيجا الله نافو هرقص عقي زيد باتاي البلشة إنه حن لاهي this is a wake up call وصومالي diaspora especially والدينتي أحب أدم بين برنامج شدان كهلا عروتينا لهلا كلية ما هني دقيسته there's a difference فرق وين بقى udhaxeeya markaad ilmaha inta constant wariyo waxaad sameynaysaa isaas u tiri dominating position balla power iyo awood bad sameynaysaa iyo marka inta isu gaabisay face to face hooyo aabo maxaa kan talk to me anigu adoo kale u dajiye listen qulubahooda iyo beenka iyo isbaarooyinka banaanka u yaala listen to them pay attention khatara lagu jiraa hana isteerigeedu guryo badan bay ka jirtaa gabadha 15 jirka qolka kor ku fadhida dhageyso siyaalo badan baa carruurta loo buliyo loo duubsadaa cyber baa jira gurigeeda loogu imanaya mobile weyn oo Galaxy iPhone dhabta u saarta halkaas loogu soo dhacaya khataraha iyo daraagada iyo balwadu meel walba qayl dhaantu waa yeerisay hana waa wake up call والدينته waxaa leeyahay barnaamijkeeda aad u dhageystay ana bixi adeer marka laan guul baan ku rajeynaya insha Allah I'm coming kowda bisha June baan waxaan imaanaya Columbus Ohio your story gaagu waa inspiring I would love to meet you markaan Ohio ka dhamaado Minneapolis hadii ii soo roodo week baan joogaya I will reach out to you I hope in a message kay soo gaarto and change maker baa tahay bulshadana wax badan baa ku soo kordhin doonta and thank you for inaad shaqadaadana noo sheegtay geesiyad baa tahay salaam alaykum